dowladda Israa'iil ayaa dishay taliye ka tirsan ururka Xamaas ee Falastiiniyiinta. 6 ruux oo Falastiiniyiin ah oo uu ku jiro sarkaal ka tirsan ururkaasi Xamaas ayaa la dilay intii ciidamada Israa'iil ay howlgalka ka wadeen marinkaasi Gaza sida mas'uuliyiinta Falastiiniyiintu ay sheegeen. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in hal askari la dilay mid kalena la dhaawacay intii howlgalka ay wadeen ciidamada khaaska ah ee marinkaasi. isku dhaca ayaa ka dhacay bariga Khan Younis oo dhanka koonfurta ku yaala. qalabka gantaalada ka diga ayaa laga maqlay koonfurta waddankaasi Israa'iil. gantaalo dhinaca magaalada Gaza laga soo riday ayaa sidoo kale la soo riday. ra'iisul wasaaraha waddanka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa go'aansaday inuu soo gaabiyo booqashadii uu ku joogay magaalada Paris ee waddankaasi Faransiiska, halkaas oo uu kaga qayb galayay xuska boqolguuradii ka soo wareegtay dagaalkii koowaad ee adduunka sida lagu shaaciyay war ka soo baxay xafiiskiisa. afhayeen u hadlay ururka lagu magacaabo Xamaas oo ah urur hubaysan oo ku xoog badan magaalada Gaza ayaa dhacdadan ku tilmaamay weerar arxan darro ah oo Israa'iil qaaday. sarkaalka sare ee laga dilay ururkaasi Xamaas ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Sheikh Nuur Warka, kaasoo taliye u ahaa guutada Isadiin al-Qasam oo ururka u qaabilsan Khan Younis. Siciid, Axmed, TAMREYSE, wararka telefishinka caalamiga ah ee Star.